waxaan ku sugannahay xarunta degmada Balcad waa shirkadda Supersign Design oo ah shirkad aad iyo aad ugu wanaagsan daawacadaha kala duwan noocyada kala duwan ee daawacadaha ayaa waxay degmada Balcad maanta soo gaartay oo 15ka bisha 2 2017 ay taariikhdu tahay in ay degmada ama ummadda Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Shabeellada dhexe ku nool gaar ahaan degmada Balcad ay kala qayb qaadato dhibaatooyinka ay dareenkeedu u ku milmo bulshada halka ku nool hadaba Supersign Design oo ka qayb qaadanaysa gurmadka loogu talagalay in dhibaatooyinka dalka ka taagan wax looga qabto ayaa waxa marka u horeysa halkan waxa yaabaha aan keenay hadii aan nahay shirkadda Supersign Design ka hadli doona Maxamed Cabdi Xasan oo kamid ah maamulka sare ee shirkadda si uu halkan sababihii loo yimid iyo ujeedooyinka loo yimid iyo waxyaabahan hortiina yaala loogu talagalay in la qaybiyo ama degmada loo gudbiyo iyo wixii loogu talagalay iyo wax ay ku saabsan ayaa noo faahfaahin doona ujeedka programkan waxa uu yahay program ay idin keentay shirkadda ganacsiga ee la yiraahdo Supersign ujeedkana waxa uu yahay wadankeena sida ognahay waxa ku soo naqnaqday abaaraha gaar ahaan markii laga hadlo shabeelooyinka iyo deegaanada kale anagoo ka jawaabayno ama isku dayayna in aan kaalmo ka geysano xaaladaha jira ugu horeeya cudurka loo yaqaan kalooraha ama shuban biyoodka waxa shirkaddu isku xilqaantay in ay agab ama daawooyin looga hortagayo cudurkaas kalooraha in ay keento degmada dhamaan daawooyinka hortiina maanta ka muuqdo waxay wax ka taraan xanuunka shuban biyoodka ama kalooraha sida aan ognahayna cudurkan shuban biyoodka ama kalooraha waxa uu ku faafaa nadaafad xumada xilliga biyaha ay xumaadaan sida aan ognahayna dadka deegaankan ama deegaanada la mid ah oo bay ahaan la mid ah nolosha oo wabiga oo maro waxay ku tiirsan yihiin isticmaalka wabiga marka uu biyo yareeyana waxa timaada in biyaha ay nadaafadooda xumaato wasaqdaas isticmaalkeeda waxa ka imaan kara marka cudurkan shuban biyoodka insha Allah waxaan rajaynaynaa in daawadan bukaano ku dhawaad 200 gaarayo ee wax u tari doonto hadii Ilaahay raahdo qayb weyn ay ka geysan doonto in laga hortago xanuunkan deegaankan ama degmada Balcad ka dilaacay iyo deegaanada ku xeeran ay hoos yimaado waana daawo wax tar u leh shuban biyoodka waxaan rajaynaynaa in ay wax badan ka tarto xanuunada meeshan ka jiro shirkadda Supersign Design oo soo gaartay Balcad u keentay gurmadkaas ay keentay waxa halku dhigiisu yahay gurmad walaal maadaama gurmad walaal uu yahay waxa la qaatay oraahda ah ama shirkadda Supersign Design oo ah shirkad daabacad oo weyn ama shirkad xayeysiin oo weyn isla markaana la dhihi karo waa calaamada saxda ah ee xayeysiinta ama calaamada saxda ah ee daawacada ayaa waxay leedahay ama oraahdeedu ay tahay ama fariinta ay direysatay gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Balcad guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxay leedahay gurmad yar oo ku soo gaara goor hore ayaa waxa uu ka wanaagsan yahay gurmad badan oo ku soo gaara goor dambe sida daraadeed gurmadka halkan waxaalihii uu Maxamed Sandheer idin sheegay ee loogu talagalay in lagu la tacaalo shuban biyoodka ama wax looga qabto waxa ka horeeya Soomaalidu waxay tiraahdaa ka hortagga ayaa ka wanaagsan daaweynta sida daraadeed Supersign Design shirkadda xayeysiinta ee Supersign shirkadda daabacada ee Supersign waxay keentay intaan shubanku dhicinba ka sii hor wixii lagu la tacaali ama sidii looga hortag lahaa ama wacyigelintii iyo gubaabintii iyo sidii loo baraarujin lahaa dadka waxay keentay istiikaradan oo 4 nooc ah 4taas nooc oo la dhihi karo mid walba fariin gaar ah ayuu sidaa fariimahaas Supersign Design waxay ugu talagashay 4taas nooc ama 4taas sticker oo mid walba tiro badan ay ka soo daabacday ay ku wareejin doonto maamulka degmada Balcad bal aan u wareejiyo dhinaca maamulaha sare ee shirkadda Supersign Design Axmed Muuse Guure si uu isna kelmadihii loogu talagalay iyo kaalmadan wareejintii uga hadlo
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan u mahadcelinayaa maamulka degmada Balcad iyo guddiga samafalka iyo dhibaatooyinka annagoo ah shirkadda daabacadda iyo xayeysiimaha Supersign waxaan go'aansanay in aan annagoo maamulkii iyo shaqaalihii iskugu jirnay inaan idin soo gaarsiino daawadaas oo aan ugu talagalnay dhibaatooyinka iyo cudurrada ka dilaacay degmada Balcad runtii waxaana keenay dareenkaas na keenayna waxa uu ahaa dhibaatadii ay guddiga samafalka noo sheegeen oo degmada ka jirtay barnaamijkeenana waxaa la yiraahdaa gurmad walaal waxa uu ka kooban yahay daawooyin qaybihiisa kala duwan sida daawooyinka cudurka shubanka ama kalooraha iyo daawooyin kale oo ka hortag ah iyo kuwa xanuunka baabi'iyo sida aad arkaysaan daawooyinkaasi ayaan idinku wareejinaynaa waxaan rajaynaynaa inaad si nooga guddoontaan isla markaana isbitaalada iyo goobaha muhiimka u ah oo ay waxbay ka tarayaan isleedihiin aad ku wareejisaan waa mahadsantihiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo uguna hambalyeynaa shirkadda Supersign oo ah shirkad oo walaalahooda reer Balcad u soo gurmadeen kana soo gurmadeen dhibaatada bini'aadanimo ah ha ahaato oo u weyn ama jaardi ama shubanbiyood wixii barnaamij loogu tacaali lahaa iyo wixii loogu hortagi lahaa iyo fikradoodii oo qaaliga ahaa ay soo aruuriyeen sida bulshada Balcad ay u qaataan barnaamijka ay soo diyaariyeen waxaan leenahay mahad ilaahay idiga siiyo ajir iyo xasanaad ilaahay idiga siiyo waxaan leenahay kolley waxaan noqoteen dadkii maanta aan ku faanayno oo nagu soo horeeyay oo noo yimid axwaashayna iyo xaaladayna ku soo baxay shirkad ahaan ayaa tihiin waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay khayr ha idiin siiyo ilaahay maxay dhahayeen meel oo aad ka qaadi kartiin ilaahay idiin dhigo taas ayaan idinku soo jeedinaynaa markan waxaan shirkadda Supersign Design oo ah shirkaddii daabacadda ama shirkad daabacad caalami ah Supersign Design oo daabacadaha kala duwan oo dhan loo soo doonan doono xarunteeduna ay ku taalo magaalada Muqdisho furuuc kala duwanna kula gobolada isla markaana wax kasta laga soo daabacdo reer Balcadna way soo dhaweynaysaa reer Balcadna way u soo gurmatay gurmad walaal waxaan filaynaa markaan haddii la yiraahdo Ahmed Muuse Guure maamulaha shirkadda Supersign Design iyo Maxamed Abdi Xasan Sandheere Maxamed Sandheere labadaba inay ku wareejiyaan gudoomiye ku-xigeenka degmada koowaad ee degmada Balcad Cabdullaahi Maxamed Xasan Cabdullaahi Tito si uga gudoomo marka waxaan idin leenahay ku soo dhawaada gacmo furan haldana guddigii ayaa lagu wareejinayaa gaar ahaan waxaa gudoomiya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada Balcad Cabdullaahi Maxamed Xasan Tito waxaa ku wareejinaya maamulkii sare ee shirkadda Supersign Ahmed Muuse Guure iyo Maxamed Abdi Xasan Maxamed Sandheere waxaan filayaa in markaan haddii ilaahay yiraahdo wixii ka dambeeya ummadda ilaahay maartay gacmo furan ay maamulka guddigu ku soo wareejin doonaa insha Allah sidii guddigii degmada ka dhisnaa ee Balcad ee gurmad dhibaatooyinka la socodka dhibaatooyinka iyo abaaraha ayaa lagu wareejiyay waxaan filaynaa in hawshaanu si fiican insha Allah ay u fushay waxaan filaynaa ilaahay Soomaali in ay isu gurmad doonto waxaan filaynaa degmada Balcad haddii ilaahay yiraahdo insha Allah inay intaas Supersign Design shirkadda daabacadda ee Supersign Design inaysan intaa kaliya haddii ilaahay yiraahdo bidnil kariim ilaahayna maartay soo galiyo inayna intaas aysan kaliya aysan ku koobnaan doonin oo dib dambana insha Allah idin soo gaari doonto ummadana ilaahay uu soo furto wabigii waan ka naxnay wabigii goran in wabigii biyihiisa ilaahay u soo celiyo beeraha ay baxaan dadku ay dhargaan reer Balcad waan aqoon jirnay waligood subax kasta way shaqo taga jireen qof baa muddo laga meel jirin beerooda aad jireen insha Allah waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu abaarahaas ka bixiyo laakiin annagu midda kaliya oon dareennay waxay tahay aan isku baraarujinay shaqaalaha Supersign Design iyo maamulkiisa in halku dhiga halka ku qoran boorka oo ah gurmad yar oo ku soo gaara goor hore ayaa ka wanaagsan gurmad badan oo ku soo gaara goor dambe marka insha Allah waad ku mahadsantiin aad iyo aad baad mahadsantiin Supersign waxaan ka gudoonnay alaabtaan hortaal baan ka gudoonnay waana ku mahadsan yihiin annaguna meeshii loogu talagalay baan ilaahay idinka gaarsiin doonaa waana ku mahadsan yihiin Supersign daabacadda noo timid oo noo keentay
alaabta shuban biyoodka ka hortaga noo keentay waa ku mahadsan yihiin mahad allaha gaarto meeshay ka soo qaadeen bedelkeeda oo khayr allah u gelsho waxaan leeyahay ummadda kalena waa inay ku dayataa oo maxaan leeyahay ganacsatada Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed inta ilaahay wax u dhiibi dadkaas abaaraha ku dhaceen muxuu ahaay cudur shuban biyoodku u dheeryahay dadkan oo caramadooga joogo lama walxaaday ku kala shaqaysan jireen ku kala taagnaayeen waxa la yiraahdo hir iyo hogol hirka waxa la yiraahdaa webiga waa engegay laba fasal oo hadda loo soo dhaafay xabama la helin dadka kale xareed ay tacba jireen iyo xoolay ku dhaqan jireen xoolihii waa ka lo'deen beerihii waa ka abaareen waxay haastaan male waxaa la rabaa in dadkaas walaalaha ah oo xoolahooda meedkooda kor fadhiyaan oo waxay haastaan jirin qof kasta oo islaam ah ama caalamka dhan waxaan rajaynaynaa in ay soo gurmadaan wax Soomaaliya dhan wax ka dhacay waa ummadda Soomaaliya dhan ay haysataa